عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا سلام أنا أصحابتي كنت حسين ستوت فور كسر دواد 10 عصود ما أنت وحنا قاعدنا circumference circle نسي الله سعره وريجا circle هذا ما حكوا على circle circle كحدود تيسا هذا center of the circle كبوينت حدود توا circle كهذا center of the circle فكفوقانتا وده حيث center of the circle iyo point walbo kamida wareega ku wareegsan centerka waxa la radius hadeer markaan hayso centerka halka yahay wareega ku wareegsan centerka point ka kamid hadaan ku xiro centerkaas waxa laga tahay radius waxaan hal radius halkan kale waa radius halkan kale waa radius hadaan waxaan ku xiro waa radius marka centerka minihii fogaan walba ka centerka ka tagta oo tagta point kamid wareegaas waxa la dhahaa radius marka circle-ka waxaan aan ku sawiri karaa radius kala duwan aan sawiri karaa millions radius maxaan ka sawiri karaa marka radius waxaan soo qaadanaa r marka haddii aan isku daro two radius anigoo dhex maraya centerka si toos ah oo tagaya point kala kamid ah magalanaysaa wareega waxa la dhahaa diameter marka fogaantaas adoo xaggaas u dhex maraya waa diameter xagga hadda midkaas laba xaggaas isku xidhana waa diameter hadda taas ku xidho diameter marka diameter sidoo kale waa sawiri karaa meel walba macnaheedu two radius oo si straight line aan u sawiro magalanaysaa centerka oo dhex maraya yana waa radius marka waxaan oran karaa diameterku waxay la mid tahay si fiican u qoro diameterku waxay la mid tahay waa laba radius oo isku daray waa two radius radius plus magalanaysaa radius loo day radius kale waxaan kale u qori karaa two times radius ko laba lagu dhuftay waxaan kale u qori karaa oo magalanaysaa haddii radius aan tixgeliyo waxaan oran karaa radius wuxuu la mid yahay diameterka loo qaybiyay labo diameterka oo laba loo qaybiyay tabcan waxa weeye haddaan diameter complete haysto diameterka aan laba qayb waxaan haystaa half noqosa radius marka intaas waa xiriir ka dhaxeeya radiuska iyo diameterka haddii aan u nimaadno wareega ku wareegsan circle ka perimeter wareega waxaan ku fogaanta shay ku gadaaman waxa la dhahaa perimeter marka perimeterka circle-ka waa special perimeter waxa lagu magacaabay circumference waxa loo soo gaabiyay oo loo qoraa c marka circumference wuxuu direct proportional leeyahay wuxuu saamigal to macnaheedu quman leeyahay diameterka that means haddii diameterku uu bato circumference ku badana haddii diameterku yaraadana wuu la yaraana marka si direct ah isla badanayaan isla yaraanayaan haddaba proportionalkaas waa wuxuu yahay special number aad iyo aad u muhiim ah weeye marka haddii aan hadaba maadaama labadaasi ay si toos ah xiriiraan oo si toos ah magalanaysaa direct proportional u yihiin haddii aan isu qaybino circumference aan u qaybino diameterka waxaa inoo soo baxaya special ratio waa number aad iyo aad u muhiim ah oo aynu ku saari karno circumference kaasoo ah waxaa lagu magacaabay ratiodaas haddii any circle haddii la soo qaybiyo circumference iyo diameterkaas waxa ku soo baxaysa in constant numberkaas ma bedelayo numberkaas waxaa lagu magacaabay p yani by baa lagu magacaabay oo bydaas wax kale ma aha waa labada waa ratioda oo la isku dayo waa circumference loo qaybiyay diameterkaas waa lagu magacaabay by waa radiuska yani waa ratiodaas byna waa naqaanaa wax kale ma aha waxa weeye waa 3.14 haddana waa sii wadi karaa waxa weeye waa irrational number waa number aan dhammaanayn sona noqonayo haddana haddeer aan sii wadno tusaale ahaan 3.14 1 5 9 2 6 taasoo soconaysa aan soo wadno marka numberkaas waa special number yani number isagoo kuma xidhna inta circle-ku leeyahay kuma xidhna yani circle-ka intuu leeyahay kuma xidhna inuu yaryahay inuu weyn yahay laakiin haddii la soo qaybiyo circumference-kaas iyo diameterka la soo qaybiyo oo magalanaysaa circumference waa fogaan yani fogaanta shayga ku gadaaman waa distance around the circle divided by the distance across the center of the circle waa distance ku wareegsan shaygaas iyo distance-ka diameterkaas labada distance soo qaybina marka numberkaas aan helana maadaama hadda aanu formulada aynu magalanaysaa soo dhiraandhirinay waxaanu odhan karnaa haddii hadda aan doonayo c aan doonayo circumference aan doonayo waxaan soo barnay casharada ka horreeyay si loo dhiraandhiriyo formulada marka diameterkan labada dhinac ku dhufanaya marka ay soo haraysa c waxay la mid tahay
pi oo lagu dhuftay diameter. Marka intaas waa formuladaasaan ku heli karaa waxaa loo yaqaano markaan circumference raadin markaan raadinayo circumference formulada any magaranaysaa circle micnihi formuladaasaan ku raadin karaa kadibna ayadulata formuladaas ayaan ku helayaa. haddii aan haddeer calaamadiyo formuladaas formuladaasad ku helaysaa mar walba town baa ku helaysaa formuladaas ayaad ku helaysaa markaad doonaysid circumference. waxaan kaloo u qori karaa oo tusaale ahaan oo kale waxaan aqaanaa haddeer waxaanu niri haddeer waxaan haysanaa haddeer diameter. waxaan kaloo u qori karaa radius because radiuska iyo diameterka xidh baa ka dhexeeya. waxaan odhan karaa hadda xagga waxaa noogu qoran diameterka wuxuu la mid yahay 2 times r magaranaysa 2 times r. marka waxaanu naqaanaa diameterka waxay la mid tahay 2 times r kadibna meesha ay taalo haddeer dida oo diameterku taalo waxaan ku bedelanayaa inta hadda halkan baa ugu bedelanaya dida ay taalo bedelanaya. marka maxaa soo baxaya c haddana xoogaa space u dhexaysiiyo saa hadhow calaamadiyo waxay soo baxaysaa c waxay la mid tahay 2 intaan baa soo gelaysaa 2 times r baa soo gelaysaa 2 by times r d baa intaa la mid 2 times r waxaasaan u qori karaa. haddii aan iyadana calaamadiyo labada formula labada waa isku mid yani kaanta ku heli kartaa labada waa isku mid oo magaranaysaa wax farqi uma dhexeeyaan labadaba isku si waa isticmaalaysaa. marka labada formula labada waa isku mid sidaas oo ku heli kartaa labadaba yani marna waxaan isticmaalayaa diameterka marna waxaan isticmaalayaa radiuska labada formula labada baa ku helaysaa. haddaba ratiodan 3.14 kan aan bay ku magacaabno numberkaas special numberkaas sidee baa lagu heli karaa يعني 4,000 oo magaalada sano koor baa wadamadan la yiraahdo Hindiya iyo Ciraaq iyo wadamada qarniyadii hore cilmiga xisaabta aad looga dambeeyay jiray cilmiga xisaabta aad magaalada ugu horumarsanaaba ayaa magaalada environmentiga magaalada waxay ka arkeen dhirta waxaas waxay ka sameeyay jiray hal biyaha lagu shubto marka foliumkii si loo ogaado iyo magaalada taayirada kale magaalada waxa laga sameeyay jiray taayirada magaalada dhirta laga sameeyay jiray sida magaranaysa fardaha wax noocaas marka rabaan inay transport sameeyaan saar jiray marka wareegga shayga ku wareegsan si loo helo waxa arkeen shaygu markuu wareegsan yahay in numberkaas magaranaysa ratio-da numberkaas iyo number constant mar walba numberkaas marka dadkaas 400 micnihiisa sano koor ayay ogaayeen magaranaysa cilmiga xisaabta magaranaysa aad magaranaysa ay wadraaseen waxa loo yaqaan environment magaranaysa daily life iyo waxyaalahaas magaranaysa ay marka waxaa jira nin Greek ah oo Artemis la yiraahdo ninkaasna wuxuu sameeyay isku day ah inuu circle soo qaatay kadibna uu saddex xagal inta ka bilaabay ilaa 96 xagal magaranaysa xagal la socday si uu magaranaysa ugu soo dhawaado circumference magaranaysa circle. marka kale wuxuu ka bilaabay saddex xagal markaas uu bari hadda waxa ka haysanaa shan xagal aan ka haysanaa markaas saas uu saddex xagal ka bilaabay waa afar xagal ku xijiyay shan xagal ku xijiyay lix xagal ku xijiyay kamar wuxuu soo dhawaanayaa mar walba aan xagalaha badiyo waxaan soo dhawaanayaa wareegaas marka markuu 96 marayay in yar baa ka dhimanayd isna kor buu ka soo bilaabay korna uu ka soo bilaabay micnihiisa saddex xagal 96 buu hoos socday marka numberkaas wuxuu soo dhawaay 3.145 numberkaas uu soo magaranaysaa wuxuu ku sameeyay magaranaysaa waxa la yiraahdo inuu soo cayimo ma fahanti marka taasna magaranaysaa Artemis ma sameeyay laakiin hadda waxa la isticmaalaa kombiyuutarro super fast oo aad iyo aad magaranaysaa loo xisaabiyo magaranaysaa pi because of pi waxa weeye waa number aan dhamaanayn magaranaysaa soo noqonayo waa irrational number numberkaas mana dhamaanayo mana soo noqonayo marka sidaa weed milyan number buu socon karaa marka laakiin waxa ugu muhiimsan waxa weeye waa 3.14 magaranaysaa qofku inta yaqaano mar walba magaranaysaa cashirkan hore ugu socono halkan waxa ka soo tusaalahan waxaan haysta circle-kaas diameter-kiisuna waa 1 mitir kala yiraahdo soo saartaa circumference aan fogaanta ku wareegsan soo saartaa waxaan isticmaalnaa formulada ku soo xusnay oo ahayd circumference waxa la mid tahay pi oo lagu dhuftay diameter-ka marka hadda circumference waxaan leeyahay pi waa constant oo lagu dhuftay 1 mitir marka circumference waxa la mid noqonaa waa pi oo mitir kadibna pi na way naqaanaa waa 3.14 kadibna wareegga ku wareegsan fogaanta waxa noqonaysaa 3.14 mitir
intaas noqonaysa fogaanta ku wareegsan circle-kaas marka 3.40 wax kale micnaheedu maaha haddii aanu wareegaas ku wareegsan circle-ka haddii aanu hal fogaan ka dhigno saa u jiifno hal line ka dhigi lahayn waxaynu inoo noqon lahay 3.14 inta ku gadaama shaygaas wey marka formulaas ku saari karaa marka hadda waxaan isticmaalay diameter waxaan hore soo sheegay inaan isticmaali karno radius maxay noqonaysaa haddaan radius isticmaalno waxay noqonaysaa daan ku nahno waxay noqonaysaa waxay circumference wuxuu la mid ahaa 2 times pi times r oo radiuska ah sida aan isticmaalno waxay noqonaysaa 2 times pi oo lagu dhuftay radius marka hadda waxaan haystaa 1 mitir radiusna wuxuu ahaa half of diameter ka diameterka laba loo qeeyay waxay noqonaysaa 1 divided by 2 mitir bayna noqonaysaa marka maadaama haddana taan haysto labada hooseeyaha iyo labada sareeyaha isku sanayaan waxaan noqonaysaa pi noqonaysaa lagu dhuftay halkii waxa ka bedelayo waxaan noqonaysaa pi waxaan noo soo baxaya circumference wuxuu inoo noqonayaa waa pi oo tan hore soo sheegnay ah 3.14 mitir hadda labadaas waa isku mid tan ama tan inta isticmaal kartaa tii ku fudud baa isticmaali kartaa haddaad taqaaniin xidhiidh ka dhexeeya diameterka iyo radiuska saasaan ku saari kartaa